ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي بمهضله تبارك وتعالى إنه سامحي إن مرلبات كسور نقنه سيان برنامج أنو قفايدي سنو مهمة oo ku saabsan mustaqbalka iyo arrimo aad u fara badan oo ina sugaya insha Allah ta'ala haday tahay jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Soomaaliya waxaan isweydiinaynaa su'aal muhiim ah waxa la yiraahdaa ummadu kama soo hadho hoggaanka qofka leadership-ka ah ee siyaasiga ah ummadu kama soo hadho waxa la yiraahdaa waxaa jira daraaso waan soo bandhigi doonaa insha Allah bardhow oo uu sameeyey nin Mareykan ah iyo daraaso kale oo nin muslima uu sameeyey itiid aad u ballaaran waxaa la yiraahdaa daraasadaas al-faraaq as-siyaasi wadan haddaad aragtid uu ku dhaco faraaq aga maamulka oo vid u yimaado oo la iswaayo waxaa inta badan keena laba arrimood waxaa keena shacbi amba bulsho aan lahayn wacyi aan lahayn maan siyaasadeed iyo waxaa keena maqnaasho uu maqan yahay hoggaan siyaasadeed oo ummadda badbaadiya marka waxaan maanta jecelahay inaan mawduuc ka hadlo muhiim ah oo aan isweydiino su'aal iyaduna aad u muhiim ah waxaa ku qoran af Soomaali waa kuba siyaasiga la rajaynayo waxaan uga jeedaa waxa weeye waa kuma hoggaanka siyaasadeed ee ummaddu ay sugayso ee ka saari kara dhibaatooyinka ummadda ku meersan oo muxaadaro hore aan kaga hadlay waxaad ogtihiin muxaadaro hore waxaan ka hadlay barnaamij aan u bixinay geopolitika amba juqraafiga siyaasiga amba political juqraafiga waxaan kaga hadalay dhibaatada ummadda aan ka dhalanay ummadda jamhuuriyadda Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed maxaa ku meersan oo bashaakil ah
mashaakilkaas oo aan u kala saarnay kuwa gudaha ah oo daakhiliya oo anterior ah iyo kuwa dibadda ah oo exterior ah oo dibadda ka imanaya oo taxadiyaad ah challengeyo dibadda kaga imanaya ah ummadda waxaas oo dhan ay hor yuurarto wa-ayo qofka siyaasiga ah ee ummadda ka saari kara dhibaatada intaa leh marka su-aashu waxay ahayd inaan isweydiino waa kuma siyaasiga la rajaynayo inuu ummadda ka saaro mushkiladda haysata af carabi waxaan ku oranay man huwa siyaasiyu lmuntadar waa kee siyaasiga la sugayo qaa'idka siyaasiga ee la sugayo wa-ayo xaggana waxaan isweydiinay les politiciens que nous espérons ninka siyaasiga rajaynayno waa kee wayaan marka su-aasha si aan uga jawaabno waa su-aal adag weeyaan waa su-aal adag maxaa yeelay waxaad ogtihiin dalka soomaaliya in ay shirayaan siyaasiyiintii soomaaliyeed oo murashaxiin ah oo ilaa iyo 12 murashax iyo in ka badan ay shiraan maalin walbaba oo ay soo saaraan bayaano ay kaga horjeedaan madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo inta la socotana maalin walba way shiraan oo villa soomaaliya ku shiraan waxay soo saaraan iyakuna bayaano aan isleenahay waxa ay rabaan iyo meeshay u socdaan maxay tahay dhinaca kaleeto waxaan ognahay in jamhuuriyadda jabuuti inay ku jirto waxa loo yaqaano ishkaaliya siyaasiya problematic dhinaca politicalka oo siyaasi ah oo ka dhalatay maanta waxaan joognaa December usbuucii hore waan dhameynay usbuucii labaad baa bilaabmaya bishii December 2020 waxaan bilaabaynaa bacdo 3 usbuuc sanadka 2021 waxaan la waabariisanaynaa in ay Djibouti bisha April ay ka dhici doonto doorasho ku tartami doonaan haddii ay dhacdaba dad kala duwan haddii kaleetana uu ordi doono uu nin quraate oo isagu keligii weligiiba isku ordi jiray ambase nin samaysan doono qof la orda oo la ciyaara filinka su-aashu waxa weeyaan haddaba questionku su-aashu aan isweydiinayno maanta waa su-aal ah iyada oo waxaas oo dhan ilaa maanta lama sheegin yaa murashax u ah xisbigan la yidhaahdo maamulka Djibouti haya iyo RBB-da amba qolada la yidhaahdo UNP-da oo iskugu tageen xisbiyo shakliyo waraaqada ah oo Ismaaciil Cumar Geelle uu isku ururiyey weli ma ayna sheegin ma murashax baa Ismaaciil Cumar Geelle ugu dambeyntii waraysigii janafiga wuxuu yiri weli waqti baa ay haray marka adduunyadana waxaa la yaqaanaa sanad ka hor baa la sii arkaa dadka tartamaya siday u tartamayaan waxay isweydiinayaan su-aalaha ay tarxinayaan marka dadku waxay gartaan waa kee hogaamiyaha ay dooran doonaan haddii ay doorasho sharciya ay dalkaasi ka dhacdo marka su-aashu waxa weeyaan su-aasha aan isweydiinayno waa kuma siyaasiga aan rajaynayno muxuu leeyahay dhaqan muxuu leeyahay fikrad muxuu leeyahay akhlaaq muxuu wadaa muxuu rabaa halkuu dadka gaarsiinayaa muxuu ummadda u sidaa ummaddu maxay ka sugaysaa su-aalahaas baa adduunyada la isweydiiyaa marka dadku siyaasaddu waxay u kala baxdaa marka dowladaha waaweyn ee siyaasaddu ay caafimaad qabta laga hadlayo waxaa la dhahdaa siyaasaddu waxay leedahay macnaha ay leedahay waxa weeye waxaa la kala doortaa barnaamij siyaasigu wuxuu sitaa barnaamij siyaasi kalena wuxuu sitaa barnaamij dadku waxay u kala eexdaan ay kala raacaan ay kala doortaan laba broje amba laba program amba laba aragti marka aragti le sidaa baan yeeli doonaa iyo aragti le sidaa baan yeeli doonaa waxna way ka qabtaan siyaasiyiintu waxna kama qabtaan markii ay tartamayeen Obama iyo ninkii Obama la baratamayay wuxuu Obama soo bandhigay barnaamij care ay ku jirtay barnaamijkii caafimaadka uu ku jiray barnaamijkii cilaaqaadka dunida uu ku jiray in Mareykanka cilaaqaadkiisa dibadda la bini aadameeyo oo laga daayo maaragtay xoogga iyo quwadda waxinkaasa inuu xuli doono xabsiyo badan inuu soo celin doono ciidamada Mareykanka dibadda jooga waxba aynkaas uu sheegay laakiin waxna uu ka dabaqay waxna kama dabaqin taabay dadku doorteen Trump markuu yimid isaguna barnaamij uu watay barnaamijkiisa baa la doortay oo maaragtay islaantii Clinton lagu diiday inkastoo ay si u kala badiyeen ay ahayd si qalad badan ay ku jiraan ambase dood badan ay wali hadda ka taagan tahay
maanta markay beedan iyo bartamayn ninka la dhahdo Trump dadka Mareykanku beedan waxay ku doorteen waa wax la dhahdo barnaamijka Trumpna way diideen marka 6 malyan ilaa 6 malyan iyo bar baa imika u dhaxaysa tiraahan inta ay ku kala badiyeen marka ugu horeysa ee wadanada caafimaad qaba lagu garto siyaasaddu inay fiican tahay waxa weeye dadku waxay kala raacaan barnaamijyo kala raacaan arinta labaad waxa weeye dadku waxa lagu kala baxaa wax cidhiidhi ah yani waxa lagu kala baxaa 51 52 50 iyo dhibic maxay yaa lagu kala baxaa imika Mareykanka markaad u fiirsatid doorashadii ugu dambeysay ee Biden iyo Trump dhex socoto ilaa imika doodi ka taagan tahay waxa weeyaan waa 49 48 bay ku soo gabagabaysatay iyo 51 marka Biden wuxuu ku noqonayaa madaxweyne waa 51 ninka laga badiyayna wuxuu ku harayaa waa 48 49 inta u dhaxaysa marka waxaad arkaysaa mujtamacu inuu wuxuu raaco barnaamijka labada barnaamij inay wada qancinayaan oo dadku ay kala go'ayaan oo ay si u kala doortaan ay garanayeen marka taasina waxay ku tusaysaa laba arrimood bay ku tusaysaa inay dimuqraadiyadda iyo doorashadu ay sax tahay arinta saddexaad labada ku tusay weeyaan inay dadku ay yihiin dad bisil oo waxay dooranayaan garanaya oo la iibsanayn la gadanayn la waalayn la maartay iyadna ku jirta arinta saddexaad ee ku jirtay waxa weeye marka wadanada ay siyaasaddu ay bisishahay waxa ku jira waxa weeye ninka leadership-ka amba siyaasiga hogaankii dadka wuxuu ku soo jiidanaya waxa weeye waxyaalooyin fara badan oo ay ka mid tahay waxaan maanta aan sheegi doono siyaasi marka la dhahdo ninkani waa nin siyaasiya waa nin aragti leh waa nin hogaamiye ah leadership marka dhahdo wuxuu leeyahay waxyaalo far ku fiiq ah oo ummaddu ay farta ku fiiqayso markaasi مثلا siyaasiga faashilka ah ee ku soo fashilmay dalka inuu soo maamulo oo meesha uu wadanka dhigay la og yahay مثلا Djibouti oo kale wadan adduunka wax walba maanta waxa dhacdaa wadanada fashilma marka laga sheekeynayo dawladaha fashilmaya ee burburaya Djibouti baa lagu daraa marka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelina wuxuu sheegtaa inuu yahay wadan najaxay laakiin muxuu ku najaxay Ismaaciil Cumar Geele waxa weeye laba shay inuu ciidan adag dhisto isaga ilaaliyo maan dhaweyto ciidanka badda iyuu la hadlayay wuxuu ku yiri waan isku kiin haleynayna macnaha annakaadna ilaalinaysiin ciidan waa ciidan isaga ilaaliya ninka yare ciidanka xakumana iyo ragii ciidanka waxay yiraahdeen ciidankani waxa loo sameeyay inay badda ilaaliyaan shakhsiyaadka muhiimka ee dalkana inay ilaaliyaan marka shakhsiyaadka muhiimka ee dalkuna waa dad macruuf oo la yaqaan weeyaan idan su'aashu waxa weeyaan ummaddu waxay dooranaysaa waa leadership waa hogaamiyahani siduu u soo bislaaday meeluu ku soo bislaaday dad baa soo bisleeyay barnaamijyada soo bisleeyay meel buu soo gaaray markaa buu hogaamiye noqday hogaamiye uu iskama noqdo ninka siyaasiga hogaamiye iska soo boodo oo maaha siyaasigu waa nin la yaqaano meeshuu soo maray jaranjaro soo maraa jaranjarooyinka uu soo maray ayaa keenay halkan inaa maaragtay lagu doorto waxyaalo badan baan sheegi doonaa insha Allah marka wadanada siyaasaddu caafimaad qabto waa sida dalalka siyaasadoodu ay jiran tahay amba ay xanuunsan tahay bugto siyaasaddu maxaa lagu gartaa maxaa qofka bini'aadamka lagu doortaa waxaa lagu doortaa inuu afmeeshaan yahay oo dadka uu ka hadal badan yahay laba waxaa lagu doortaa inuu dadka ka jeeb ballaaran yahay uu lacag bixinayo oo dadka uu gadanayo uu iibsanayo oo waxa la yiraahdaa rishwa siyaasiya waa gubba siyaasadeed buu bixiyaa waxaa lagu doortaa ninka siyaasiga markay siyaasaddu bugto reer baa lagu doortaa waa qabiilkayga u ixigaa waa deegaankayaga ayaa lagu doortaa barnaamij laguma doorto arrinta afraad markay siyaasaddu bugto waxaa lagu doortaa waa laga cabsoonaya waa xoog ninka dadka uu leynaya oo dadka uu xirxiraya oo dadka bilaashaq uu ka dhigaya oo dadka guryuhu ka qaadanaya oo dadka maaragtay wuxuu ka dhigayaa bila nolol waa ninkii la oran jiray muxuu ahaa la oran jiray nabigu sii sheegay la oran jiray dajaaj al-awr waa dajaal muxuu sameeyaa jannana uu haystaa cadaabna uu haystaa ninka isaga raacana jannadu galiyaa tiiseera beenta ninka ku yimaadana cadaabtu galiyaa tiiseera beenta marka taas bay iyay haystaan marka dadku waxay arkayaan janno beena iyo cadaab beena marka jannada beentay doortaan oo cadaabta beentay ka baxsadaan marka siyaasaddu marka ay jiran tahay ay xanuunsan tahay ayna caafimaad qabin taasaa lagu gartaa
lidalika culimmadu waxay dhahdaan dhinaca science politika ka hadasha political science ka hadasha waxay dhahdaan siyaasaddu waxay u kala baxdaa wadanada adduunka maanta lagu nool yahay saddex bay u kala baxdaa waxay u kala baxdaa wadano siyaasaddu ay caafimaad qabto la rajeynayana inay sii caafimaad qabto siyaasaddu ay caafimaad qabtaa waxaana la rajeynayaa inay sii caafimaad qabto waxaa ka mid a wadanada Scandinaviga Iceland baa ka mid a waxaa ka mid a Jarmalka waxaa ka mid a Canada waxaa ka mid a Australia waxay leeyihiin wadanada siyaasaddu way caafimaad qabtaa wayna sii caafimaad qabi doontaa waxay leeyihiin waxaa jira wadano siyaasaddu ay caafimaad qabto laakiin loo cabsanayo inay siyaasaddu jirooto ama ay xanuunsato bukoto waxaa ka mid a Mareykanka waxaa ka mid a Faransiiska waxaa ka mid a Britishka waxaa ka mid a wadanada sidaa looga cabsoonayo wadanada maaragtay ay soo laba kaclinayaan sida Autriche wadanada ay soo laba kaclaynayaan waxaa loo yaqaano midigta aadka u fog waxaa yamiin almutadarrif loo yaqaano midigta fogi waa dadka aan ogolayn wada noolaashaha weeyaan dadkaasi waxay ku socdaan dictatornimo waa waxa maanta keentay inay Sisi iyo Macron wada kulmaan dadka Faransiiska oo ka horjeeda Sisi ayuu madaxweyne Macron yiri hawl quraataan ku wada jirnaa lianna Macron wuxuu ka sugayaa Sisi sidoo ula dagaalamay diinta islaamka Macron wuxuu ku sugayaa Macron inuu hub uu dagaal ku galo shacbiga uu ka soo iibsado marka taqaatuc المصالح baa la kala iibsanayaa dimuqraadiyadii iyo xorriyadii iyo xuquuq al-insaanki waa la iloobayaa walidaalika markuu hadlayay Macron wuxuu yiri xuquuqda bini aadamku waa muhiim laakiin arintaasi lagama horjoogsanayso inaan hubka ugu dambeeyaan ka iibino wadanka Masar marka taas waxay ku tusaysaa inay jiraan wadano aad siyaasadoodu u fiican tahay ilaa imika laakiin ay halis ku jirto oo booliisiyagu soo bilaabay walidaalika waxa barnaamij ka dhacay Faransiiska booliiskii waa lagu kacsan yahay lianna Faransiiskii wuxuu soo bandhigay barnaamij in la mariyo baarlamaanka raado amniga shaamilka ah securityga buuxa oo ka dhigantii Afrika oo kale dadka in la marka dadka laga kacay arrintaas marka wadanada waa loo cabsanaya saddexaad waxa weeyaan wadanada loo yaqaano wadanada siyaasadoodu ay jiran tahay oo iyagana laba loo kala saaro waxaa loo kala saaraa wadano siyaasadoodu jiran tahay ay sii jiramayso ay xanuunsan tahay ay sii xanuunsanayso wadanada waxaa namuudaj example waa Sacuudiga waxa uu Imaaraadka waxa uu Masar waxa uu maxaan ku idhaahdaa wadanada ay sii xanuunsanayso waxa uu maaragtay Suudaan baa waxa uu Djibouti baa waxa uu Soomaaliya waa wadano ay jiran tahay siyaasaddu laakiin lama filayo inay caafimaado way sii jiramaysaa way sii xanuunsanaysaa way sii bukaanaysaa asbaabaha ugu wacan asbaabta koowaad ee ugu wacan waxa weeye ufuq siyaasadeed dadku ma arkayaan meel ay ka baxaan politic ma oo nuur u shidmaya ma arkayaan laba waxay leeyihiin ma jiro projeyo siyaasiya oo dalka xora oo dhex yaacaya oo dadku ay kala dooranayaan xataa wadanada bisayl siyaasadeed uu ka jira sida Masar oo kale waxaa ka jira cadaadis siyaasadeed oo laba laaban ama saddex laaban iyaa ka jira wadanka qoraatay 60,000 oo siyaasiya ay xabsiyada ku jiraan marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa in aynan xataa hablihii xuquuq al-insaanka u dagaalamayo dhalinyaro yar Sacuudiga way xidhan yihiin culumadii caqliga badneed way xidhan yihiin siyaasiyiintii waaweyn Sacuudiga xataa boqoradii kuwii furfurnaa kuwii xataa cala aqal boqortooyada ilaalin karayay sida Naif maaragtay Maxamed bin Naif oo kale waa xidhan yahay marka waxa weeyaan oo ahaan jiray ninkii ku xigay boqortooyada dhexdiisa lahaa ambase ahaan jiray maxaan ku dhahdaa wasiirka arrimaha gudaha waa xidhan yahay xitaa maaragtay Amir Ahmed waa la ilaaliyaa oo dhaxalka xaq u lahaa inuu qaato marka waxaas oo dhan waxaa jira in crisis baa jira amba azmo siyaasiya marka waa siyaasad jiran oo sii jiran doonta sabab loo qoray waxaa jira wadannada siyaasadoodu way jiran tahay laakiin way caafimaadayaan naxwa mucaafaad loo socdaa waxaa ka mid ah wadanadan America Latinka ku yaala sida Brazil wadanada la midka ah sida Hindiya waxaa ka mid ah sida Turkiga waxaa ka mid ah sida Iran waxaa leeyahay wadano jiran wadano xanuunsan waa wadano siyaasadoodu ayna caafimaad qabin 100% laakiin waxa u socotaa naxwa mucaafaad way caafimaadayaan waxaad ogtahay maanta Macron iyo Erdogan waxay ku tartamayaan waa badan loo yaqaan Atlantic ma badan loo yaqaan Mediterranean al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit waxay ku tartamayaan Suuriya waxay ku tartamayaan Libya waxay ku tartamayaan Azerbaijan waxa weeyaan Faransiiskii weynaa ee nuclearka haystay Turkiga soo sara kacay oo la tartamaya
marka waxa weeyaan waxaa jira waxaa dhada wadana dhacdo siyaasadoodu ma fiicno boqolkiiba boqol way jiran tahay cala alaqal laakiin waxay ku socotaa way caafimaadaysaa marka adduunka saasaa loo akhriyaa khariidada siyaasiga ah ee dunida dadka dabagura dadka dabaartay arrimaha akhriya saasay u akhriyaan okay waxaanu imanaa walaalayaal su-aashii muhiimka ahayd waa kuma waa kee waa ruuxee ninka badbaadin kara maxaan ku idhahdaa cafwan bismillah ninka badbaadin kara qaran siyaasadeed hogaamin kara ummad iyo qaran siyaasadeed ka saari kara jalaanjyada adag ummad ka saari kara waa nuucuu u eegyahay siduu u eegyahay ayaan ka hadlaynaa waxaad ogtihiin walaalayaal ummaduhu waxay maraan 3 marxaladood bay maraan ummad walba annaka haddaan u fiirsano Djibouti amba aan u fiirsano Soomaaliya amba aan u fiirsano wadannada kale ee walaalka nahay muslimiinta afrikaanka carabta aan u fiirsano waxaan eegaynaa jaranjarooyinka 3da kii baan ku jirnaa ninka siyaasigaana maxaa laga rabaa taas waa su-aasha weeyaan waxay dhahdaan culimmadu qof waxay wadannadu maraan 3 jaranjaro jaranjarada koowaad waxa weeye jalanjiga haystaay waa jalanji wujuudi oo existence burbur iyo baaba bay geed u saaran yihiin amba way ku dhaceen waxay rabaan hogaamiye ka saara hogaamiye badbaadiya iyo u baahan yihiin taas waa mid weyn marka qoladaas hogaamiye u baahan yihiin wuxuu leeyahay sifaad qolada labaad waxaa la dhahdaa waa qolo ka soo baxday mushkiladii jiritaanka laakiin waxay ku jiraan mushkilaad siyaasi oo adag sida Iiraan oo kale waxay sayaan Mareykan waxay sayaan shanta zaid xabad la dhahdo shanta wadan ee Vitoga iyo Jarmalka bay sayaan waxay sayaan wadanadii Carabta waxay sayaan Israa'iil waxay ku jirtaa marxalad la yiraahdo marxalad loo diidan yahay inay horumar gaadho isla markaasina ay rabto inay horumar gaadho marxaladda waxaa dhada marxalatu tanmiya inay horumar gaadho marka iyaduna waxaa dhada ummadda noocaasi waxay u baahan yihiin hogaamiye ummadda saddexaadi waxa weeye waa ummadda istiqraar gaadhay deganaan gaadhay siyaasiya deganaan dhaqaale iyo deganaan bulsho laakiin cabsi badan ay haysato sida wadanadan Canada Yurub oo kale Mareykan oo kale waxay dhaafeen marxaladii labadaa way soo dhaafeen horumarkii way xaqiijiyeen jiritaankoodiina way sugeen maxay ku siiyeen way xasiloon yihiin laakiin sidee loo ilaalin karaa xasiloonidan sidee baana loo ilaalin karaa horumarka loo sii daa'imin karaa waxaa loo yaqaano développement durable التنمية المستدامة horumarka waara sidee loo sii ilaalin karaa idan question waxa weeye marxalad walba waxay u baahan tahay hogaamiye u fiirsa suuradan dhacdo suuratu al-baqara reer bani israa'iil waxay codsadeen inuu ilaahay u soo diro nin boqora oo leadership oo hogaamiya marka ilaahay nin buu doortay ninkii loo doortay way diideen waxay yiraahdeen sidoo anna yakunu lahu al-mulku sidoo noqon nin hogaamiya illa waa shacbi mutakhallif waa shacbi dibu yaala aqliyan siyaasiyan waa shacbi aan bislay waa shacbi wacyi siyaasi aan lahayn waxa weeyaan si aan sheegayno noloshoodu waxay ku salaysan tahay inaa la iibsan karo waxay dhahdeen sidee buu u yeelan walam yu'ta sacatan min almaal xoolo badanna ma haysteen siduu loo hogaamin nin aan Trump ahayn nin aan xoolo haysanin siduu loo hogaamin bay dhahdeen marka nabigii wuxuu ka yiri ilaahay wuxuu ninkan inagu doortay laba shay wuxuu inoogu doortay isagaa garanaya waxa uu wato leadershipmadiisa wazaadahu wuxuu ilaahay ku siyaadiyey bastatan fil jismi wal ilm cilmigana waa loo balaariyey jirkiisuna waa jir dinamika oo nool oo balaaran waa jir nool lidalika waxaad u fiirsataan madaxda Yurubiyaanka iyo madaxda Carabta iyo madaxda Afrikaanka bal fiiro gaar saara ninka madaxa ee Yurubiyaanka xataa ha weynaado sida Biden waa 8 jir yuu ka weeyaa u ordaya markuu diyaaradda korayo u ordaya markuu soo dhacayo orda kuwilna way ku kursanayaan waa jirka marka bastatan maaha waa balaaran yahay ma sida kuwilna waxa weeyaan waa jir dhisan weeye waa jir sportiif ah waa jir bastale waa jir nool dinamik ah cilmigiina waa cilmi nool idan ilaahay markaa muxuu ninka waa la doortay waa leadership u qalmaa waxaad ku jirtiina waa crisis jiritaan oo waxaa la dagaalamaysa ummad inay baabi'inaysa nin niga saaraa loo baahan yahay ninka inaga saaraya wuxuu leeyahay muwaasafaat tilmaamuu leeyahay
taasi waxaa dhahdaa waa marka ummaddu ku jirto marxaladda maxaa dhahdaa marxaladda jiritaanka marxaladda marka ay kriis ku jirto oo horumar ay doonaysana maxay u baahan tahay inay nebi yuusuf oo kale heshay u baahan tahay ilaahay baa qur-aanka ku sheegay suuratu yuusuf calayhi salaam ilaahay wuxuu inoo sheegay nebi yuusuf wuxuu leeyahay sifaat maxaa ka mid a sifatul cilmi aqoon buu u leeyahay sida ummad looga saaro dhibaato dhaqaale wuxuuna u leeyahay amaano wuxuu ummaddu ay leedahayna ma cunayo mana boobayo mana xadayo mana qaadanayo dadkana uma qaybinayo ee wuxuu samaynayaa cashar aan bilaabi doono iminka oo khamiis walba aad dhiga doontiin ayaan soo qaadan doonaa maxaa asal u ah siyaasadda raddul amaanaat waxa dhacdo amaanada in dadkii loo cesho dadkii xaq u lahaa qof walba wixiisa inuu helo wayaan walidaalika waxa weeyaan marxaladaasina waxay u baahan tahay nebi yuusuf oo kale calayhi assalaam qur-aanku waa cajiib qur-aanka ma akhrino waa dulma marnaa marxaladda saddexaadi waa marxalatu listiqraar markay uma degan tahay waxay u baahan tahay hogaamiye sifaad leh waxaa ka mid a cumar binu khataab bay u baahan tahay cumar ibnu cabdilcaziz amba waxay u baahan tahay qur-aanka haddaan aan ku laamano nebi sulaymaan calayhi salaam nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu sameynayay dowlad jirta oo mustaqir ah ayuu ka shaqaynayay horumarkeeda waxaa ka mid a ninkii maaragtay dulqarnayn wuxuu u tagay 3 ummadood oo kala duwan ummad maaragtay jabtay ummad maaragtay horumarkii garala iyo ummad iska jirta oo u baahan in la horumariyo intiiba wuxuu u soo dejiyay barnaamijyo kala duwan buu u sameeyey muxuuna ku sameeyey sabab fa atbaca sababa waxaa soo noqonaysa fa atbaca sababa sabab maxay tahay sababa maxay tahay waxay ka dhigan tahay sunnaha ayuu raacay metodology buu raacay sunna kawniya ayuu raacay si ummad loo dhiso idan waxa weeyaan walaalayaal maanta labadan wadan ee ka hadlayna Djibouti iyo Soomaaliya waxaa kala haysta laba mushkiladood oo kala duwan waxa weeyaan labada mushkiladood ee kala duwan waxa weeyaan midna wax bay ku fiican tahay midna wax kale ku fiican tahay midna dhibaatooyin halis ah haysata midna kale dhibaatooyin kale oo halis ah haysta waa inaan si analysis u saarno مثلا Djibouti waxaa ku fiican tahay dawladdii ma burburin dawladdii way jirtaa dawladdii way jirtaa burburkiina geerkay u taagan tahay fashalkii oo systemka siyaasiga keenay inuu fashiliyo oo u dhacdo aniga dabaday meel wax laga soo qabtay ma jiro wadan siyaadadiisii la iibiyay oo maaragtay Ethiopia iyo wadana kale laga iibshay wadan xoolihiisii la kala tagay wadan maaragtay dhamaantiisaba la leeyahay oo deyn ah culus ah ayay u iman doonaa siyaasiyiinta dambe ee badbaadin doonaa waa taas weeyaan okay marka wadankii uu jiraa laakiin wadankii dhibaatooyin halis ah oo fashal siyaasi inuu ku dhaco ayuu geerka u saaray nin leh aniga Djibouti iskale kama tagayo yaa meeshii fadhiya idan taas waa mid koowaad dhinaca Soomaaliya dawladdii baa ka burburtay way soo kabmaysaa marka Soomaaliya dhibaatada weyn ay haysatay waxa weeyaan dawladdii dhexe iyaanan itaal lahayn oo xamar dhaafi karin oo viila Soomaaliya lagu xiray oo loo diidan yahay inay dalkii oo dhan ay gaadho marka dhinacaas waxay ka tahay dawladda Soomaaliya dhibaato weyn baa ka jirta laakiin Soomaaliya waxaa ka jira waxa loo yaqaano xorriyad siyaasadeed qofku wuxuu aaminsan yahay buu sheegi karaa xisbi buu samaysan karaa adeecad buu samaysan karaa television buu samaysan karaa labadan baa jirta marka labadan haddana u fiirsano Djibouti waxaa ka jira waxa loo yaqaano tasaxur siyaasi lama degaan siyaasadeed baa ka jira tasaxur iclaamiya lama degaan warbaahin baa ka jira tasaxur fikriya lama degaan fikradeed baa ka jira nin kasti oo siyaasiya oo soo kaca qofta laga gooyaa waa la dilaa Soomaaliya maxaa ka jira sicir barar siyaasadeed baa ka jira waxaa ka jira sicir barar iclaam yani warbaahin iska hadlaysa iska muuqsamaysa iska caytamaysa waxay sheegayso iyo wuxuu kala sheegayo intuba isku dhacdhacayaan wax badan baa ka jira oon cilmiyeysaneyn marka waxaan u baahannahay waxa weeye marxaladan aan socono labada wadanba waa marxalad adag weeyaan waa marxalad aan oran karno waa awdaac ma'zuuma awdaacdu waa ma'zuum waxaa dhahdaa waa awdaac crisis crisis lagu yidhaha waa problemkii bay dhaafeen kaarisay dhaafeen waa azma mutadaniya waa azma aada u hooseysa dadka Djibouti dhex fadhiya markay ka baxaan Djibouti adduunka tagaan hurda kacaan marka ay wadanada ka laamaan Djibouti tagaana way naxaan maxaa yeelay waxaa jira wax argagaxa waxaa jira yaa wax argagaxaasi muxuu keenaa inay naxaan markay noo soo noqdaan waxay dhahdaan war meeshii waa lagu kala tagay waxaan ku leeyahay waa wali iska normal min wallahi waa lagu kala tagay dhahdaan meeshii waxay noqotay nin keligii harimaadee ciyaaraya iyo in yaro sacabka u tumaysa
iyo in dhamanka haysato daawanayso leh laa xawla muxuu sameynaya muu waashade dadkii intaasi u kala baxeen marka halkaas waa halka Soomaaliya dad fara badan oo reer Yuruba oo Mareykanka oo Kanadiyaana iyo meesha sida nolol ka dayda oo tagtay marka siyaasadii Soomaaliya waxay noqotay siyaasatun heer maxay noqotay laga shaqaysto siyaasadu wax laga shaqaysta ma imika marka lagu leeyahay ninkan waa siyaasi lagu leeyahay Mareykanka xukumo amba Mareykanka Trump oo lacag leh مثلا تلودو kale ee wadankan xakumayo marka uu doono inuu guri dhisto banku tagay lacag buu amahanaya lacagta uu amaahanayo ninka yar ee kuuliga mid la mid oo amaahanaya laakiin lacag ka badan buu amaahanaya baqal milyan dollar milyan iyo bar dollar uu dhisanayaa haga uu kan 400 iyo 500 oo ka dhisanayo dollar marka labada qof maxaa u kala dhaxeeya lacagta uu ba kala weyn laakiin markuu guri u dhisto doonayo intuu guri u tago ma iibsan karo abadan wasiir ahaado baarlamaan ahaado ma suurta galayso ما صورت جالس nin siyaasi intuu Turkiga tago inuu guri ka soo iibsado nin siyaasi oo Canada ma suurta galaysa inuu maaratay baabuur aan la gelin inuu soo iibsado wato ma suurta galayso ninka siyaasiga dadku indhuhuna way ilaalinayaan kulanayaan laakiin Afrika ninkii halkan joogay baa socday wuxuu tagay Afrika wuxuu durbaba ka iibsaday guri maaratay Turkiga wuxuu ka iibsaday mid kale Dubai wuxuu mid kale ka iibsaday Canada dhexdeeda ama Ingiriiska meeshuu fadhiyay marka ninkani wuxuu u tagay waxa weeyaan ma aha inuu siyaasi badbaadiyo noqdo qaran ee wuxuu u tagay inuu noqdo siyaasi ka shaqeysta siyaasadda walidaalika muhaadara inoo soo socota waxaan ka hadli doonaa qofka shacbiga ee caadiga sidoo uu kala garanaqay siyaasiyiintan sidan sameynaysa sidoo maxaa laga sugayaa isaga qofkan caadiga muwaadinka ee wadaniga maxaa laga sugayaa taana ma muhaadara ka geli doonaa laakiin imika waxaan imanaa insha Allah ilaa iyo 12 sifo amba tilmaam yuu leeyahay ninka siyaasiga ee Soomaaliya amba Djibouti badbaadinaya waxaan rabaa dadkan Soomaalida gaar ahaan odayaashan xulaya baarlamaanteerada dibiteeda Soomaaliya soo xulaya si ay u doortaan madaxweynaha waa inay laba arrimood iska ilaaliyaan arinta koowaad waa inay iska ilaaliyaan ilaahay baa cadaabi taariikhda cadaabi ummadda cadaabi mustaqbalka cadaabi dhaqanka burburidooda inay lacag ku qaataan inay qof ka dhigaan baarlamaan lacag daraadid oo ilaahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu ar-rashiya wal murtashiya wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay hal la'nado ninka bixinayo maaratay laaluushka iyo ka qaadanaya ar-rashi asiyasina uu ka sii waa qowl zuur beer sheeg baa lagu leeyahay hebel oo fiican baa leedahay ma fiicno hebel oo xun baa leedahay uu fiican yahay waa qowl zuur nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam saddexda qiyaamaha ilaahay uu la hadlay ee ilaahay uu soo eegay ee cadaabta ugu daran galaya maxaa kamida waxaa kamida markuu soo tiriyay shahaadatu zuur ninka been marag u furaya وكان متكئا النبي وفدي وأوتي سنة فقام أو سركعت صدق قول بكعدي ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور موضوع عاد ما وهل دون إن شاء الله علمك سياسي بركة كهذا بركة دورنا يسدنين دون مدحوينها الدركة ومدة متري دونا وفرصة ما أنت نقولي أبي وأضيئة إن ترادي يدي وحمر لو يمادو lacag baa ka imatay khaliishka lacag kale ka imatay Djibouti mid baa ka imatay maaratay wadanada Masar mid baa ka socota maxaan ku radaa wadanada reer galbeedka waxa meeshii lacag baa duuraysa ugu yaraan waa inaan kala socdo konton kun $60,000 anoo oday kana aan u qoslo kana u qoslo ka wada guro hadhow mid aan soo saaro hada xaraam waa xaraam marka maxaa laga hadlayaa waa dhaqan xumo siyaasadeed weey waa burbur siyaasadeed weey ummadda noloshooda ku dhisaysa waxa dhada laaluush siyaasadda ku dhisaysa halkii horumar ka gaari doonta marka taasi waa mid daweed marka dadkeena waxaan rabnaa qofka aad dooranaysid maxaa lagu dooranayaa sifaat buu leeyahay adduunyada akhlaaq buu leeyahay dhaqan buu leeyahay wuxuu leeyahay wax la raaco macaayiir normiyuu leeyahay macaayiir la dhigay oo dhigan oo dhada kani kan uu ka fiican yahay waliba cilmiga saada kan dhigayna ibn Taymiyyah wuxuu ka yiri كيف لو دورتا صالح سيدا لو دورتا أصلح سيدا لو دورتا أكفأ سيدا لو دورتا أليق يعني واحد صار وهذا العلمي وكجر علمي بوليتيكال قرني على باطنا يقول باطنا يعني صالح قف وناكسن قف سي وناكسن قف قلمة قف سي قلمة وحاس أردن وحا لو إذا معايير ليس كما دورتهم ليس كما ديقون قفك مدحوين ولا ليس كما ينعب
ra-iisul wasaare layskama idhahdo oo maaragtay wasiir un layskama idhahdo layskama dhahan waa maamula xafiis wuxuu leeyahay macaayiir lagu doorto lianna haddii lagu dooran waayo macaayiir iyo noormiyo iyo nidaam burbur baa ku imanaya ummadaas waana waxa soomaaliya haysta jibuuti markaan joogno waxa weeyaan marka uu leeyahay geele anigu ma aragtay dadka ay doonaya inaana socon dadkuna ay leeyihiin kuma doonee soco isagiibaa horta been sheegaya naftiisiina been buu u sheegaya caalamkiina been buu u sheegaya wuxuu ku biiray isaguna kuwa uu nebigu yiri sal lla ly slam waxaa ugu daran aakhire aan la soo egeyn malikun kadaab madaxweyne beenaalaha boqor beenaalaha oo ummadiisana been u sheegaya shacbigiisa been u sheegaya caalamkana been u sheegay naftiisana been u sheegay iska dhaadhicinaya inuu yahay qof aanan laga maarmi karin siday ugu heeseen kuwa masaakiin ay yidhaahdeen ma laga maarmi karaa maanta iska daya beraan laga maarmi karin waa nebi moxamed baa laga maarmoo dhintay calayhi salaatu wasalaam isagoo ah khayru khalqillaah oona laga maarmi karayn oo ummaddu u baahan tahay waa rasuulullah iyay ummaddu aastay qabrigiisii oo abubakar la doortay ma jiro qof aan laga maarmin laakiin waxaa laga dhaadhicinayaa masaakiinta siyaasiyiinta ah heesaa laga dhaadhicinaya siduu yidhi wadaadkii maaragtay ama mufakirkii ama filosofkii soomaaliyeed hadraawi uu yidhi dadka ayaa sameeya dictatorka dadku ma sameeyaan dictatorka ee dictatorkaa sameeya dadka isaga samaynaya on halkaasaan gaari dadku hadal fiican wuxuu maaragtay filosofku wuxuu yihi dadka ayaa dictatorka sameeya laakiin anigu akhristaydii badnayd waxay imika ii keentay kelmadan ah dictatorku wuxuu sameeyaa dadka isaga sii samaynaya dadkuu kala shaandeeyaa wuxuu kasoo dhex saaraa dadka loo yaqaana xashwiga dadka maalaayacniga alruwaybida siyaasiya wadiiniya walfikriya dadka doqmaha ah siyaasad ahaan fikrad ahaan diin ahaan dadka ayna dadka waxba u diranin ayuu halka hore soo fadhiisiyaa dadkii fiicna halka dambe u dhigaa kuwaabaa markaa isaga boqoreeya walidaalika hamaan iyaa la kulmeen fircawn baa ku yidhi ilaahay baan ahay maaha ii sujuud wuxuu ihi hamaan xataa ana ma anaa igaleeda ii sujuud ana ladii sanactuka anaa kaa dhigi ilaahay anaa dadka ka dhaadhicin inaad ilaahay tahay oo laga cabsoodo ma anaa igaleeda ii sujuud marka dadkani noocaasay xataa garanaya waxaas halka dambaa la dhigaa waxaan aqaana jabuuti nin siyaasiya oo madaxweynaha la saaxiiba xaashim baan dhadaa ma qariyo wuxuu dhadaa annakaa ismaaciil cumar samaynay dadkana waan u boqoraynay waxaana rabnaa inay dadku ka cabsoodaan laakiin adiga cabdiraxmaan bashiir iyo barkhad iyo giiri waxaad soo saarteen caqiida la dhahdo ilaahay u ka cabsoodo waa caqiidadii islaamka marka haddii ilaahay keligii laga cabsoodo dowladdiina sidee looga cabsoon sidee annakana looga cabsoonin buri marka wuxuu isgarab dhigay hadalkaasi 100 goor buu yidhi isagoo oo maaragtay meelo badan isku aragnay marka taasi waxay ku tusaysaa ikhwaani fillah inaan loo baahan yahay arrimahaas in si looga bixiyo shacbigu inay gartaan dowrka ay leeyihiin mar dambaan ka doon imika waxaa imaan markaa ninka siyaasiga ah ee ummad siyaasad ka saaraya waxa ugu horreeya looga baahan yahay ma taqaanaa waxaa dhahdaa dadkiin uma fiirsadaan raali noqda bismillah waxa ugu horeeya ummad uu qofka siyaasiga ummad badbaadina looga baahan yahay waa inuu yeesho qiraa'ة siyaasiya shaamila waa inuu leeyahay lecture ama lecture akhris siyaasadeed oo dheeli tiran oo buuxda inuu yahay nin siyaasadda gudahana akhriya siyaasadda dibaddana akhriya siyaasadda dhaqaalaha akhriya siyaasadda bulshada akhriya siyaasadda diinta akhriya siyaasadda taariikhda akhriya siyaasadda waaqica akhriya siyaasadda mustaqbalka akhriya siyaasadda dawliga internationalka akhriya siyaasadda localka akhriya siyaasadda iqliimka akhriya gobolka ee maaragtay ku meersan nin siyaasaadka sidaa u akhriya waa inuu ahaado qiraa'ة siyaasiya waa inuu leeyahay walidaalika qiraa'adda siyaasigu waxay leedahay 3 jaranjaro kow inaad buugaan akhridid inaad akhridid jaraa'id inaad akhridid majallaad magaasiino inaad akhridid waxaa loo yaqaano raabooro taqaariir inaad akhridid waxaa loo yaqaano maxaan ku dhahdaa dawriyaad waxyaalo culummada waaweyn ee jaamacaduhu ay qoreen inaad akhridid waa kow akhrintaasi arrinta labaadi waxa weeye in aad ka qayb gashid dowraad semineero siyaasi ah oo lagugu sameeyo inaad tagtid siyaasad politicalka dhaqaalaha bulsho cilmiga dhaqaaluhu muxuu yahay ninka siyaasiga hadduu dhaqaalaha aqoon siyaasi maaha waa fashil ninka siyaasiga hadduu aqoon bulshada waa fashil
bulshadaadu maxay ka kooban tahay ma reeraa ma technique-ba ma diinba maxay waa inaad garanaysid maxaa kugu meersan waxaasoo dhan ta saddexaad ugu dambaysa waxay siyaasaddu waxay ku dhalataa inaad cilaaqaad leedahay xidhiidh waa sheegi doonaa marka qiraa'a siyaasiya ayaan dhaweyta obama yaa su-aal la weydiiyey markaad madaxweynaha ahayd maxaad akhridaa baa lagu yidhi wuxuu yihi waxaan akhriyaa 2 saacadood anoo madaxweynaha 2 saacadood oo noloshayda ah waxaan ka saaraa nolosha waxbaan akhriyaa ayaanta oo dhan marka aan soo jeedeen waqti waayeen habeenkii markaan soo hoydo 2 saac ma seexda ilaa 2 saacadood wax akhriyo kutub baan dhameeyaa maqal okay tawaamku labo subaxa marka uu yimaado madaxweynuhu guri uu soo galo xafiiska waxa uu yaala wax walow dunida ka dhacay oo la soo khulaaseeyay rasiime la soo koobay iyo hor yaala uu akhriyaa waa mid labaad midda saddexaad waxaa loo keenaa qasaasaad waxyaalo la soo ururiyo la soo koobay oo majallaadka caalamiga waaweyn ay ka qoreen dalkiisa iyo dalalka kale marka qofkaas waa qofno qiraa'a siyaasiga qofka ummiga siyaasiga qofka siyaasadaha ummiga sidoo xalay ku soo xaday bari ku soo kacay sidoo bari ku soo kacay caaw ku soo kacay ee habeenadiisa iyo dhalaaladiisa isku egyihiin uma soo badbaadinay ninka wuxuu ku hadli jiray 20 sano ka hor maanta ku hadlay maalmad waxaan dhageystay khudbadii Ismaaciil Cumar 20 sano ka hor iyo maanta uu akhrinay wuxuu ka dhaxay waa iyadii lianna isma bedelin wax ma akhriyo wax ma barto wax ma diraaseeyo cilmi uma dhaafo dad uma yeero culumaa lama sheekaysto واسقي هو لم يتغير سبدل مرة قف نوع عصا سياسته ديناميكية سياسته وحيوية وفيفانت سياسته والتغييرات بقصر يسبدل له الحالة بقصر قف كهدو سيدو هاجرون هذا مرة قراءة بحاله يقول مرة أوباما لا بس ساعد إمي كنا محل غير تاني كسياسي إنه وحخريو برودكسيون بولي مقالات بقرة ارتكلوا قرأ وحجة محاضرات ما هسخد بلاها سياسية الأخيرة ديسكورو جيليا جامعة وحا لو قرتا بوغان بوقرا وحا لو قرتا مركا الله ورئيسانيو ورئيسي بحنيو ريفرانسيو كلها ما اسكما هدلاؤون ميل بوحكا سو قاتا وسكو ركبا مركا بوحكا سو سارا اناليز مسامية قفكاس وحوية واحد قرسا انو يهي قف سياسي بارسكي لكتير بوليتيك بوليه قراءة سياسي بوليه او شاملة مركا نيكا سياسي غاوكا كو لمبر 1 أردوغان waxaa lagu yiri goor maxaa la khidaa wuxuu yiri laba goor maalin walba sida laba saacadood buu sheegay arinta saddexaad marka muhiimku waxay wuxuu yiri bishii maalin iyaa u yeedha aqoonyahan waaweyn oo Turkiya iyo kuwa kale oo muslima iyo kuwa aan muslim baahayn guriga la yimaadaa buug baa la soo qaadaa ama dhowr buug baa la soo qaadaa waa la soo akhriyaa kadibna waan ka niqaashnaa waxaasna waxaan u bedilaa afkaar camaliya practical baan u bedilaa okay marka muxuu yahay markaas waxaasi waxa ka dhigay maanta inuu noqdo hogaamiye la hadal haya adduunka inuu Azerbaijan ku guulaysto Suuriya ku guulaysto Liibiya ku guulaysto inuu badda ku guulaysto inuu Yurub iska celin karo inuu hadli karo maxaa keenay wuxuu akhrinayaa dacfiga dowladaha Faransiiska meeshuu daciifka yahay uu ka faa'iideysanaya meeshuu daciif uu ka faa'iideysanaya Ruush iyo Mareykan buu ka kala faa'iideysanaya wala ciyaaraya labadaba marka waxaas maxaa u keenay qiraa'a siyaasiya shaamila dalkiisina uu wadaa موتير باشر سمي هوبك أوردن وبهيا وحسمي هليكوبترو وحسمي مراكب وإنت لحية طبعا كاسنة وجوه وحسمي يسبدل لحد لماها يسبدل أقلال نسيت جيبوتي وكشش معمر أقل باند ديسني روش بانو يعني شينا يعني مريكان بانو يعني إسلام بان حقا مارتي ضد يرو وحنسين باره بابوريا يرو وحنسين أقل خليج أي ديسين بأنا سيء وقولي إسلام خليج والعقل أقلينا ديسين وصدقنا يوشيغانا يا يعني عقل الأولاد بقى مركا تاسي وتاوي بروبلم مركا وقراءة لبو وحلو بهاي هنيك سياسي إنه يشاء التبصر واستشراف في المستقبل وحلو يقانو بريفيون يقولو يقانو إنه قفكو ديار ويهاي إنه مارتي كقيب قالي كرو أفينيركا إنه أركي كرو أفينيركا مركا تبصر وبريفيون بريفيون هاي وأنت تبصر واحد دعي هنا في كثير شعب كاغو مش بديلها هاوس بديلها سيسكو بديلها نحو الأسوأ نكحون بس نحو الأفضل شعب كاغو جاتك مركو عنيو ما حاكا نشا شعب كاغو مركو خمر قعبي ما حاكا نشا شعب كاغو مركو مخدرات كعنيو ما حاكا نشا شعب كاغو مركا او مارتي كورونا ويمدي ما حاكا نشا شعب كاغو مركا او شومير نقضي بلا شقوق ما حاكا نشا
shicibkaagu markay isnaceen qabiil ahaan maxaa ka dhashay tabasur waa inaad wax fiirfiirisid istishraafi lmustaqbalna waa inaad eegtid waxaa soo socda maxaa dhici kara inaad maaragtay oo qofka maaragtay maxaan ku dhahdaa siyaasiga ah waa ninka maaragtay waxaas arki kara weyaan okay haggan waxaan rabaa inaan kelmad yar oo muhiim ah aan iniga sheego okay haggan bay soo weydiiyeen qaar marka waa sida weyaan marka waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaa loo yaqaano waxaa odhanay tabasur inuu qofku wax akri karo wax eegi karo fiirin karo tabasurku waa fiirin istishraaf mustaqbalkuna waa anticiper l'avenir inuu qofku mustaqbalka ka warkeeni karo maxaa dhacaya alma-aal maxay dhahaa siyaasiyiinteedu siyaasiyiinta weliba muslimiinta juwiniga muxuu dhahdaa siyaasaddu waxa weeyaan inaad wax ka qabatid xaalan wa ma-aalan waxa maanta dhacayana wax ka qabo waxa berito la dhacayana wax ka qabo ninka aan garan waxaa maanta dhacaya ma garan kara waxa soo socda ninka waxa soo socda aan garanna waxa maanta dhacaya ma garto way isku xidhayiin marka siyaasigu waa maxay waa siyaasiga mustaqbalka sheekeeya eeg imika marka aad dhegaysanaysid madaxweyne europeana wuxuu ku leeyahy waxaan doonaynaa in aan dalkeennu uu ahaado dal ay ku raaxaystaan ubadka aan dalnay kuwa ay dhali doonaan mustaqbal dheer baa la filayaa erdogan muxuu yidhi maan dhoweyto waxaan diyaarinaynaa in ay ubadkeenna ubadkoogu madaxda dunida ay noqdaan ay kala qayb galaan madaxda dunida xakumi doonta okay muxuu diyaarinaya erdogan inuu diyaariyo jiilkii adduunkan xakumayay ee la xukumayay maraykan iyo yurub adiguna maxaad diyaarinaysaa adigu markaad soomaali tahay markaad siyaasi tahay maxaad diyaarinaysaa waxaad diyaarinaysaa reerkaad ka leedahay adeer reerkan uu nacadibay kursigeenu kusoo noqoni waa inaan anaku qabsano markaad reer jabuuti tahay maxaad diyaarinaysaa waxaad leedahay inuunan imanin nin la dhahdo hebel daahir inuu imanin inay imanin rag dhahdo mooda inaynan imanin aadan maarata inuunan imanin siyaasiga aadan maarata dhahdo adaadu inuunan imanin hebel he yaa imanaya anaa joogaya war ado xataa ayaa ku bedilaya anaa joogaya limaada lianna kii i bedilaya weli ma jiro ninkaabaa mustaqbal ka talinaya ma ninkaabaa ubadka soo socda waxay hogaamiyaal diyaarinaya imika waxa ugu weyn ee adduunka la diyaariyo waxayaan icdaadu qaadati lmustaqbal in la diyaariyo misaakaadhi salaadii abayso eg icdaadu qaadati lmustaqbal in la diyaariyo qaadada mustaqbalka waa shaqada ugu weyn ee adduunka maanta qabtaan waxa weeyaan hogaamiyaasha leadershipka mustaqbalka ayaa la diyaariyaa okay waa la eedaamaan waan soo kokoobaya saddex waxa weeyaan ikhwaani fillah qofka siyaasiga ah arrin saddexaad uu ka shaqeynaya waxa weeyaan altanmiya asiyaasiya altanmiya asiyaasiya altanmiya asiyaasiya maxay tahay wuxuu ka shaqeynayaa siyaasadda maxaa dhahdaa kobcinteeda ninka siyaasigii kama shaqeeyo taqxiidu siyaasa in siyaasadda la abaareeya kama shaqeeyo war hebel baa soo baxay ka takhalusa hebel baa cilmiga dila aqoon-yahanka dila markaad dishiinna aqoonta iyada nafteeda dila si uu aqoontu marka la dilo uunan usoo bixin nin wax ninka wax ogaaday dila waxaad dishiin si aan wax loo ogaan kadibna waxaad dishiin ogaanta nafteeda waxaa u dishiinba si ay dadku ay jaahil iyo ummi u noqdaan waxba ogaan waayaan ninka maarata soomaaliga ahaa basle idan waxaa maxaa taqxiir maraa abaaraynta siyaasadda adduunkana waxaa ninka siyaasiga uga shaqeeyaa tanmiya siyaasiya developement politique siyaasadda waa la kobciyaa arrinta afraad ninka siyaasigeena badbaadinaya waxaa loo baahanya asiyaasa akhlaaqiya inuu yeesho siyaasad moraal siyaasad etiga siyaasad dhaqan leh siyaasaddan soomaaliya ka jirta iyo jabuuti ka jirta waa siyaasa xayawaaniya ana wa gayri illah aniga un baa jiray libaaxu isaga un baa keynta haysta waa siyaasaddii keynta wayaan siyaasaddii ma aha magaalada ma aha almadiina alfaadila siyaasaddii ma aha xataa mikavil yaa ku dhaama adiga oo dadka ina nooleeya oo wax kuriya lakin ad waxaad ku leedahay aniga un baa noolaanay faamigeyga un baa noolaan hadihi siyaasa gayr akhlaaqiya weya siyaasaddu waxay u baan tahay mooqaal walidaalika markaad muslimta waliba siyaasad aan moraal lahayn siyaasad maaha waa xayawaannimo waa siyaasad dadka laynaysa oo dilaysa taasina waa ta afraad wey shanaad waxaa loo baahan yahay alsiyaasa daata alru'yati walxirafiya
ninka dal badbaadinaya waa inuu yeesho vision iyo karti siyaasadeed labada waa inuu wadato sidii ilaahay ku tilmaamay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub wadkur fi lkitaabi ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba waa saddex oday oo dhasho nebiye ahay oo hogaamiyaal ahay leadership ahay yacquub waxaa dhalay isxaaq isxaaqna waxaa dhalay ibraahim yacquubna wuxuu dhali doonaa yuusuf calayhi salaam laakiin aayaddani saddexaa bay noo sheegtay muxuu ilaahay waxay ahaayeen buri ذوي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي ده كرتلة والأبصار فيش نلعب مركا قفكو وحالة هذا سياسي وهدو فيش ليه ونكرتلة هين ما فاشل ما فاشل كده أنا أكتب في عن بولي وفيلسوف لكن واحد ما قبنا هدو واحد قبنا يوم ننور يوم دقائق يوم ما كستجي لكن بلا فيش صعداي ما فاشل محلو باي إنه لبضنا نسكت سو فيشن iyo aragti hadday siyaasiyiintu yeelan kari waayaan waa inay kuwa vision kale ay la shaqeeyaan kuwa aragtida kuwa maaragtay shaqada ku fiican waa inay isbuuxiyaan walidalik bay Kissinger maraykanka muhiim wuxuu yahay ninkii maaragtay wasiirka arrimaha bari ahaan jiray wuxuu u yahay vision buu leeyahay ma shaqeeyo wada duqa waddankani waxaa jira tigtaanka dadka dhaa tigtaanku maxay qabtaan tigtaanku waxay keenaan visionka bila aragti waddan ma shaqeyn kara okay marka siyaasaddu waa inay yeelato ru'yad vision aragti iyo xirfad waa inay yeelato talixaad siyaasad ninka siyaasiga waa inuu noqdo nin bulshada ku dhex jira nin aqal ku xidhan maaha nin la xidhay maaha nin ay afar qof inta aqal geliyeen yidhahdeen dadku saabi ka aaminsan yihiin loo keena maaha waa inuu noqdo nin ku dhex nool bulshada nolol nool oo tafaaculi baa tafaaculi السياسي التفاعلي المجتمعي bulshada ku dhex jira bulshada taahoogu dhageysta bulshaduna taahoogi gaarsiiyaan siyaasiga markaa badbaadin kara qaran iyo ummad waa siyaasiga noocaas weeyaan ma aha siyaasiga burji caajiya ku dhex jireen keligii iska noolee baabuuradiisu qurux badan yihiin kabihiisu qurux badan yihiin aqalkiisu qurux badan yahay marka uu bukoodo Paris ku soo daweynaye marka uu gaajoodo loo soo qaadayo Rome cuntadiisa marka uu maartay sharaab doono dubi loo keenay caanaha ama maraacigi Sacuudiga loo soo qaadaye marka uu maartay cadaanaye dadkuna ay wada dumeen ma aha hada siyaasi ma waa siyaasiga mujtamaci waa Umar ibn Khattab wuxuu kale calooshiisa qarqari aw la tuqarqari فإنك لا تذوقي طعاما حتى يأكل آخر مسكين في المدينة. وحول أم عبار على شيء تقول هذا أم به عباد عنطفي عن مدى دمينيسين إلا ومسكين كوضن بين المدينة ودركو. هذا هو وقف مجتمعية وقف تذكر النور ويا أردت التضبان وحويا وسياسي عملية وسياسي براتيكالا ما سياسي هلا وما وبراتيكال محا سوقتي محا أي هاي وسياسي قرطة إنه فشل ما إنه نجحية وسياسي شغال يسوع عضه هوية مركز اللي يقول هاي سياسي النجحية أم بسياسي ما أنت أنسوي إنه أبغى وسياسي عملية وسياسي برنامج كيسو وكسر يسوي عمل يشغل أوكي أريتها سيديدان وحوي سياسي أبغى أنت في صوماليا ما أنت أم بجيبوتي أبغى أنت وسياسي علاقات له جنرال هي سبيسيفيك علاقات خاص هي علاقات عام وأنه حرير جود وأدون كلية حرير قارن وإنه ليه سياسي النوع عاصم أو ففران أو ضدك صور دولية أو ضدك الله شاكيستا أو ضدك مارتي قلبي كيس أفرا أو أغل كيس غير كيسو نكون مريسين قبيل كيس أيو يا مارت أصحاب كيس أيو يا أي رجعي هيو إن يا رب مارت العوس وسيدي العكس سيديو ما وسياسي الصومالي وإنه حرير قحوتيكا وحرير قحوتيكا صاركو ولا صار نورا ما ها إنه فردي هوتيلات واوين يمكن حمر لقرس هذا ليس سياسيا ما ها إنه فردي مارتي أقلاد واوين كردستان تركيا ماشاس ما ها وأنا سياسي جيبوتي نطلع وحقبتاي وإنه مجتمعي يكون حجو كوي دبته جوجا يكون جودها جوجا وإنه لولاتي تصقالات وحوي سياسي الله يقانو وسياسي نشرة أو أكتيف أو فاعلة أكتيف مسكحية أكتيف جراهان أكتيف حزبي أهم سياسي فاعل كي وحقبنا إيه مارتي فعل أكشن لا وسياسي كو حزب لا بارتي وإلى لا ده أبقى كجرتي لبا وإلى قد قال لي أفكار تعالى ما هي أفكار تعالى قريسي أفكار تعالى وإلى ده كسر بديتي أو كشيء كيسي إنك أردوغان كوي لبي كوي كتبوا يوكو جوليسي ما تقول ضمسي لكن واحد كسر بلابن هل بقول كي بهال بها مركي وقوه الرئيسي حزب سلامة يو قاريو وحاول كسر بلابن رفاهيو تضواتنا دي waxay heli jireen qof yani waxa uu jeedaa
0% iyo hal iyo heli jireen maantana kuwii ka tamweelaa intaas oo dhan afkaartooda sharxayeen ma ilahayn annaku waxaan nahay wadaado oo diintaan jecleena doorta annaku waxaan nahay reer hebel oo qurac baan nahayna doorta ma ilahayn afkaar bay dadka soo barayeen afkaartay bandhigayeen marka waa inuu qofku afkaarsi u dagaalamo munaadir waa kaa faacilku waa inuu u dagaalamo dadka kale isagoo ku dhex jira waa inuu afkaarsi difaaco waa inuu dhex jiro dadka axsaabta kale afkaarta waa inaad dhex fadhiisid waxaa loo baahan yahay inaad baratantid tartan gashid adoo sharafa u galay ma ninka faacilkii tartan gal maaha tartan layna maaha ninka soo baxayba dila maaha mishaarka gooya maaha shaqada ka eriya amba sida soomaaliya maaragtay madoobeeya caaya waxba muu qaban hebel waxba ma qaban kani wuxuu iibiyey kani badda u iibiyey kani badda iibisay sheekada maaha yunaafis bisharaf arrinta kale wuxuu rumaysan yahay ninka faacilkii mushaarakada participationka keliya wax ma qaban kartid waa inaad dadka kaleeto ay wax kula qabtaan taasi waa ka sagaalaad bay taasi ahayd ta tobanaad waxa weeyaan qofka siyaasiga ee naajixa ee maanta loo baahan yahay yujawidu wuxuu kor u qaadaa diskuurka siyaasiga khitaabka dhawaqa hadalka siyaasiga yuu kor u qaadaa u qurxiyaa khitaabka shacbawiga uu ka tagaa kan shacbawiga ee popularismiga kani maaragta ka sheekeynaya ree hebel baa ree hebel ka fiican iyo wuxuu ka tagaa annakaa niga fiican ininka iyo kani maaragtay trump ee waalan iyo kani maaragtay kan xakuumika maaragtay autrish iyo dadkani midigta iyo gaalka ninka cad baa ninka madow ka fiican iyo kuwa kale iminka soo baxay madowga caddaan ka fiican iyo amba jibuusiyaaniteegu waxa weeyaan qofka sidaa u eeg iyo maaha waxa soomaali baan nahay oo dadka waan ka maaha waxa waa khitaab insaaniya khitaab diskuur bini aadamnimo diskuur diiniya diskuur fikri oo kor u yaala ummadda kor u qaada khitaabkaaga shacbi ka saar popularism ka saar tabsiidi facilite ka saar khitaab compliqué oo adag oo cilmi ah soo bandhig oo dadka tusaysid halkee laga baxaya halkee loo socdaa okay ninka siyaasiga waa ninka dadka u sheegaya ma hiya almushkila wama alxal c'est quoi le problème solution una muxuu yahay hada huwa siyaasi waxa weeyaan takoo iyo tobanaad siyaasigu wuxuu rumaysan yahay mustaqbalka ninka siyaasiga suu yeelay ee leadershipki waa nin mustaqbalka eegaya ma aha nin dhooqa dhex fadhiyo ooye maaha waa la iga adkaaday waa la idilay waana la caayay waana la xidhayaa waana la baabi'inayaa halkeen ka baxnaa maaha waa qof aaminsan mustaqbalka weeyaan waa qof ka shaqaynaya xaadirka presenska waa qof ka faa'iidaysanaya maadigi baseega laguma noolaado waa laga faa'iidaystada presenskana shaqaa la qabtaa mustaqbalkana waa la isku diyaariya hada huwa siyaasi aan sugayno 12 waxa weeyaan kama fikiro ninka siyaasiga ee sugaynay dadka inuu dheereeyo fogeynta dadka siyaasiyiinta kama shaqeeyo ee wuxuu ka shaqeeyaa soo dhaweynta dadka ka duwan lianna noloshu waxay ku fiican tahay dad kala duwan oo wada shaqeynaya kuma fiicna dad isku eeg oo wada shaqeynaya dad baa waxaa ka hela qof kula mid ah qof kuu eeg qof aad isku fikir tihiin qof aad isku ra'yi tihiin inaad sheekaysatiin had iyo jeer la taasi macno male waa inaad ka shaqaysid oo la shaqaysid ka kaa duwan markaas siyaasigaan u baahannahay waa ninka 12ka maaragtay leh haddaan 12ka weyno waxaan ku jiraynaa waxa aan nahay si aan uga baxno waa inaan dad caynkaas aan helo mawduuc kale inoo soo socon doono insha allah salaadii maqrib baa ina haleeshay jazaakum allahu khayran waa mahadsantihiin meel kastoo joogtaan waa ini salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu